الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا ليال يلكينا قرنا يعود كان كهد لايوه يضع أن كجرنا بله حجك خبرا سبحانه وتعالى أدومي سواء حريص بدن يهي حديث صومك إيا تراويحدي تهجدك إيا خيرك بدناي ربك نوجدي أين قدن جرنا بيش الصوم قده هذا حدي أولا ماذاي ما ربك ندنا النعمة لبد إنو في دي أهنا نعمة الحج بيش علينا كجرنا شوال أما صومفر إيا بيش حيكتا أوسيتال أمد الغعدة يا بيشا حيكته سدح ذا بلود بأشهر الحج ليسكو إلى بليه حجك ومعنى هذا يا هاي بلاها حجك لقوتو صدا درادات لكل مقام له مقال قبتي مركا لجوغة فهذا الكفاء ولا غير أياجيره وحنجا لها مركا يضو حلي بحجك لقوجيره أما يبليه حجك باللوضين لقنا يا فدد مسلمين تكمل الصوماليات إني حج كتلقى شيئين أما لقما مارمان بايتها إني علمي أهم بأبرتان أيانسيكو بنالك محاملة سوجيدين يا عشر حجك كصابسا حدان قبل الله بتعريف أما تلمانت حجك وحاوية حج لغة العربية وحلوية هذا قصد إن وقفك قصده وحنه قصده مركا حج بمعنى قصد وقصدي حدي لنك استراحة إنه نقولنا وقصد بيت الله الحرام إلى أقل كيساس حرمة لأولو قصده لأداء مناسك الحج أو العمرة مركانا عمرذي أما حج عمليالك إلى هايين نديب كشرحي دونه si loo guto darteed in loo aado guriga alle qiimiga badan baa xaj lagu yiraahdaa xajka walaalayaal waa tiir ka mid ah tiirasha islaamka oo haddii qofku uusan xajinin isagoo caafimaad iyo dhaqaale iyo awood isla helay oo wax islaamnimadiisii ka dhiman ka labaad xajka فضل آدو تربضان بوليه ونبي وكشك عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حج سفي عن لوغتي أما القدكيسو وحن جناهين ماها حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حديث كان النبي كسبنا ذو معنيه سيهاي قفك حجية هنا حجية بيتك الله وحفساد أنا أن لا إيمان دنبه وهراء قلي وحوكا نقرايا المحلي لشيء أوكالي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وأوليه حجك إيا عمرضا faqiirnimada bay qofka ka dhiciyaan sida buufimaha oo birta qashinka dul fuula buufimaha uga dulqaado oo kale baa qofka xajka iyo cumrada ay faqiirnimada uga dulqaadaan xajka wuxuu leeyahay tiirar waxay culimada isku waafaqsan yihiin iyo waxayan isku waafaqsanaynba afar baa la isku waafaqsan yahay kow waa niyada alixraamna loo yaqaan
niyada waa tiirasha xajka ka mida nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof la arkaaba wixii uu niyooda ayuu leeyahay camalkana wuxuu ku noqdaa qiimigal in la niyoodo markaa niyada xajka la niyoonayo baa tiirka koobaada tiirka labaad wuxuu noqonayaa alwuquufu bicarafa maalintay bisha 9 tahay niskeeda dambe laga bilaabo duhurka ilaa habeenka 10aad laga gaaro salaadiisa subax intaa u dhaxaysa banka weyn ee carafa loo yaqaan in xaajigu istaago istaagidaana tiirkii labaad wey 3 dawaaful ifaada kacbada oo lagu wareegaysto 7 jeer dawaafkaasoo dawaafu ziyaara iyo dawaaful ifaada labadaba loo yaqaan isna tiirka saddexaad wey tiirka afraad assacyu bayna asafaa waalmarwa labada buuroo gaagaaban dhexdooda oo iyagana 7 goor la socdo afartaa ayaa laysku waafaqsan yahay imaamu shaafici raximahullah madhabkiisa wuxuu qorayaa alxalqu aw itaqsiir tintoo la xiiro ama la gaabiyo in jacalnaahu nusukan haddii aynu dhahno waa camal iyaduna arkaanta inay ka mid tahay 6 wuxuu qabaa imaamu shaafici tartiibu mucdamil arkaanta inteeda badan in laysku xixijiyo oo macnaa niyadana u horeyso ayuu qabaa sacyiguna waa in dawaafku ka horeeyo arkaantaasi inta laysku raacsan yahay 4 iyo 2daas imaamu shaafici la gaaryahay arkaanulxaj baa la yihaa macnaa waa rukumada ama tiirarka waaweyn ee culus ee xajku ka koobmo oo haddaan lala iman uu xajku asaxaynin haddaan ka gudubna arkaanta xajka waajibaad buu leeyahay waajibaadka tiradooda waa layskuma wada waafaqsana waxaa ka mid a kow alixraamu min almiiqaat meelaha aynu tilmaami doono miiqaadka loo yaqaano ah 5 meelood oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam 5taasoo khuseeya qofka xaajiga ah hadba dhankuu ka yimaad yaman iyo dhanka hadduu ka yimaado yolamlam hadduu ciraaq iyo dhankaa ka yimaadana daatu cirqi hadduu najdi iyo ka yimaado bariga mamlakadiiyo khaliijkana qarnulmanaasil madiina almunawara iyo jidkeeda hadduu ku yimaadana dulxulayfa masar iyo shaam iyo hadduu dhankaa ka yimaadana juxfa 5taa meelood oo laga xirto xajka ayaa waajibaadka ka mid ah alixraamu min almiiqaat meelo ka fog waa laga xarman karaa qofkii 2 meel dhexdood ka soo dhacaana markuu iyagaa la siman yahay buu xarman karaa hase yeeshee 5taa meelood baa magacaaban oo hadba xaajiga dhankuu ka yimaado wuu ka xarmanayaa waxaa kaloo waajibka ka mida sida madaahibka qaar ay qabaan atalbiya labayk allaahuma labayka in la yihaa iyadana waa waajib min waajibaati alxaji ka mida sida ay qabaan aimada qaarkood qaarna ay sunno qabaan sidoo kale baryida la baryaayo musdalifa habeenkay bisha 10 tahay dilxija ama carafo ama 3 habeen oo ka dambayso oo muna la baryaayo baryida iyadana waa waajib kamida min waajibaati alxaji ramyuljimaar dhagaxyaalka la ganto oo ama maalinta 10ka la ganto ama maalmaha muna la joogo iyagana waajibka xajka ayay ka mid yihiin tinto ama la xiiro ama la jarana imaamu shaafici maaha inta kale waajibka ayay ku tiriyeen dawaaful wadaaca oo xajka lagu xiro dawaaf lagu sagootinayo kacbada oo aan laga cafinin gabadhii markaa ay caado u timaado oo rafaqadana ka tegaysa maaha dadka intiisa kale o dhan laga rabo dawaaful wadaaca isaguna waajibaadka ayuu ka mid yahay haddaynu xusnay arkaantii
waajibaadkana xusnay qofka waajib ka taga min waajibaati alxaji ka mida xajkiisu ma fasaadayo waa sax hase yeeshee waxaa fuulaya damu jubraan dhiig neef buu gowracaya oo uu ku kabayaa khalalkii galay kadibna waxaa jira waxa layska ilaaliyo muxaramaatulixraam la yihaa waxaa weeye qofka xaj xarmaday wuxuu iska ilaalinayaa markuu xarmada kadib wax udgoon oo dhan sidoo kale jirkiisa tin hadduu yahay ciddi hadduu yahay goyn maayo way iska ilaalinaya wixii iska go-a isagu dembi kuma leh laakiin isagu inta wax lagu gooyo hadday manqas tahay ama makiino tahay amay dab tahay amay jafi tahay amay rifi tahay oogadiisa waxaa ku yaalla tin iyo ciddi ah wuu iska ilaalinaya rag hadduu yahay madaxa inuu daboolo ayuu iska ilaalinaya haweenku iyagu dharkay rabaan bay qaadanayaan wuxuu iska ilaalinayaa xaajiga lubsulmukhiid wax godan markaan leeyahay funaanad iyo sarwaal ama matante ama khamiis ama jubad ama sigisyo ama buudan madaxa la geliyo sida koofiyaha ama feeraha la geliyo sida shaararka iyo khamiiska ama lugaha la geliyo sida saraawiisha waxaa godan oo dhan ayuu xaajigu iska ilaalinaya laba go-o fidsan oo nadiifa ayuu qaadanaya inayan tolnayn baa wanaagsan hadday ku yaryaraadaan iskuwa tolan qaataana dhibaato male laakiin wax sidii weel u godan yeeya noqonin wuxuu iska ilaalin xaajiga guur wax ku saabsan oo naagnama guursan karo isnama guurin karo intuu xajka awlihiisa ku jiro ugaarta ayuu iska ilaalinayaa ma ugaaran karo xaaskiisa ayuu iska ilaalinayaayo galmood iyo wax lamid iyo kaag dhawaasho samayn maayo waxyaalahaas oo dhanna xaajiga waa inuu iska ilaaliyo haddii uu sameeyo kuwa kan ganaax culus ayaa fuulaya laakiin xajka waxaa fasaadiyo khariba mid keliyata oo ah galmooshada oo xaaskiisa u galmooda xajka isagoo ku jira ilaa uu ka xalaal noqdo ayaa ka reeban taasaana xajka fasaadinaysa culaysaad u tiro badan bay xaajiga u keentaa oo uu ka mid yahay horta hore xajkiisiibaa ka kharibma waata labaadee xajkaa khariban inuu dhammaystiraa waajib ku ah waata saddexaadee isaga iyo xaaska in la kala dhaqaajiyo ayaa waajib ah waatan saddexaadee xajka soo socda dambe inuu soo xajiyaa waajib ku ah waata shanaada inuu neef geela qalaa waajib ku ah intaasoo dhibaato ah waxay ka dhashaan ugalmooshada xaaska amaa haddii uu ugaar dilo ugaartaas wixii xagga adduunyada kala qiimaha ayuu bixinayaa masalan goraya hadduu dilo neef geeluu gowracaya biciid hadduu dilo neef lo uu gowracaya awloo kale hadduu dilo neef ari uu gowracaya haddii waxaa la waayaana inuu waxay noqonaysaa cunto bixiyo qiimigii neefkaas u dilay oo cunto ah waxaa hadduu waayo inuu samay noqonaysa amaa waxyaalahan kale ee aynu tiltilmaanay hadduu galo waxaa laga rabaa sida hadduu qof ama shukaansado ama waxa uu galo al-istikfaaru watawba ayaa laga doonayaa kuwaana waa uu iska ilaalinaya intaa kadib xajka wuxuu leeyahay arrimo badan oo usluub iyo anshax ah baa xajku leeyahay nadaafadaa ka mid a qofka xaajiga ee xajka xarman inuu isnadiifiyo intuusan xarman laakiin markuu isnadiifiyo inuu cadar iyo wax udgoon ismariyo wey nafaqo xalaala inuu qaato wey dad rafiiqyaaloo saalixiina inuu raaco wey xajka muddadaa uu ku jiro muran iyo buuq inuu iska ilaaliyaa wey cibaadadii iyo alla ka cabsiga inuu aada ugu dadaalaa wey howlahaasoo dhan howlaha laga doonayo wey usluuba iyo anshax iyo sunanima looga doonayaa marka arkaan baynu sheegnay waajibaadna waynu sheegnay waxyaalihii muxaramaadka ahaa ee layska ilaalinayeyna waa sheegnay waxyaalaha usluubka iyo anshaxa ana waa tilmaanay wixii iyagaa kasoo horjeedana karaahuu noqonaya marka xajka markaan ururiyo 3 shanaad buu ka koobmayaa xajku 5 meelood oo camalka xajka lagu sameeyo oo kala ah miiqaadkoo meesha laga xiranaya iyo makoo tawaafka iyo sacyiga wareega labadaa iska leh iyo muna
oo baryid iyo dhagax tuurid iyo tima xiirid iyo xoolo gowricid ba iska leh musdalifo oo baryid iyo allabari leh carafo oo wuquuf leh waa 5 meelood meesha laga xarmanayo miiqaad baa la yihaa makana dawaafkiiyo sacyigaa lagu sameeya munada baryida iyo dhagax tuurka iyo xoolo gowricid iyo tima xiirashada lagu sameeya musdalifo waa la baryaa 3 salaadoodna waa lagu tukadaa maqrib iyo cisho urursan iyo fajar aadna ilaah baa loogu barya carafo waa la istaagaa duhur iyo casar kulansanna waa lagu tukadaa 5 meelood waa 5 hawsha iyada ahaynu tilmaanay 5 maalmood baa la fuliyaa maalintay bisha carafo 9 tahay bay ka bilaaban maalintay 10 tahay baa xigta 11 12 13 5 maalmoodna hawsha la fuliyaa 5 meeloodna waa lagu fuliyaa camalka markaynu ka hadalna arkaan iyo waajib iyo muxaramaatul ixraam iyo sunan iyo aadaab aynu tilmaanay camalkiina wuxuu noqonayaa 3 la rabo ah arkaantii iyo waajibkii iyo wixii sunanaha 3 waa lala iman wixii muxaramaad iyo wixii makruuhana waa la iska ilaalin 5 markaa 2 la iska ilaalin iyo 3 la iska rabo waa 5 camal meesha lagu sameeyna waa 5 meelood maalmaha la sameeyna waa 5 maalmood 3 salaadoo la isku hagaajiyo iyo niyad samiba xajku u baahan yahay haddaan camalka aynu sheegnay la fulin kii aan reebnayna aan laga fogaanin meelaha aynu magacawnay haddaan hawsha lagu fulin maalmaha aynu sheegnay haddaan la samaynin kolkaa wixii xaj noqon maayo intaa waxaa dheer wax la yihahdaa shuruudu takliif oo ah 5 shay baa laga rabaa qofka xajka laga rabo kow inuu muslim yahay gaal xaj lagama rabo 2 inuu qaangaar yahay saqiir xaj lagama rabo 3 inuu baaliq inuu yahay qof caqli leh majnuun lagama rabo 4 qof awooda inuu yahay qof aan awoodin lagama rabo dumarka si gaar ahaaneed waxaa looga rabaa inay maxram wataan 5taasna waa shuruuda xajka intaasaa xajka markii la ururiye uu ka koobmaa haddaba qofkii alla u qadaray inuu xajiyana doonaya waxaa laga maarmaana arrimahaas inuu sidaa tifta tiran u guto iyaday ku salaysan tahay niya sami iyo ikhlaas iyo daacadnimo wuxuu markaa noqonayaa xajkii lagu janno mudan lahaa ama xaajiga wixii dembi ah ee horay uu u galay ka ridi lahaa saabsan yahay sida xajka loo guto haddii qofka xaajiga uu u soo dhowaado miiqaadyadii 5 cashirkii hore aynu ku sheegnay miiqaadkaasoo ah meesha xajka laga xirto oo ama 5 meelood oo aynu sheegnay baa jirtay ama qofkii 2 meel dhexdood ku soo aadaa dhexdoodu ka xiran karaa meel kaba sii fogna waa laga xiran karaa laakiin in la dardaro hoos loo dhaafaan la ogolay goortuu xaajiga soo gaara meeshii laga xiran lahaa xajka ayaa waxaa diin ahaan la jeclaystay xaajiga in shaaribada uu iska guro tintiisana uu gaabiyo cidiyahana uu gaabiyo uu qabaysto ama uu weyse qaato is udgiyo markaasna uu xirta dharka xarmashada markaan dharkaa leeyahay raggaan ka hadlayaa laakiin haweenku dharkay rabaanba way qaadan karaan intaa markuu diyaargaroobiddaa sameeyo uuna soo gaaro meeshii xajka laga xiran lahaa haddii salaad xilligeedii uu jiro farada ay jirto wuu tukanayaa haddayan jirin 2 ragcadood ayuu tukanayaa markaasuuna xajka niyoonayaa 3 sibaa xajka loo niyoodaa xaj keliyata inuu xirto mufrid baa la yihaa iyo hadduu mutamatic noqonayo inuu cumraha niyoodo markuu dhammeeyana hadhow xajka uu dib ka xirto ama inuu 2diiba isku daro xaj iyo cumro wada niyoodo aduu yahay qaarin 2diiba isku daraya sidaasuu markaa xajkii u xiranayaa xirashada markaasaynu u sheegnay xajka waa rukni tiir xajka ka mid a oosan xajka asaxayn isaga in la sameeyo maahe laakiin inuu noocuu yahay xaj keliya inuu xirto ama cumro hormariyo xirto ama uu 2dooda isku daro waxba farad ma aha
hadba waxay ku xiran tahay sida xaajiga uu ku talagalo xaajiga hadduusan saddexdii camalaynu sheegnay ifraad iyo qiraan iyo tamatuc baa la yihaa midna hadduusan carabka ku dhufan oo xaj iska niyoodaana xajkiisu waa ansaxaya hadhowna kii uu rabuu ka dhiganaya goorta uu xarmado saynu u tilmaanay niyadii iyo dharkii iyo nadaafadiina waxaa loo jeeday markaa in uu talbiyada qaado cod sarana uu ku qaado talbiyada waa sheegi doonaa cod saruu qaadayaa nin hadduu yahay haweenka hadday yihiin iyaga inay ismaqashiyaan baa ku filan xilliyada uu kor u qaadayo waa goorma goorta uu meel taaga fuulo ama uu meel goda ku hoobto ama uu koox xaajiyaala la kulmo ama qofba uu la kulmo aroortii markuu marayo iyo salaadaha shantaa markuu tukado ayuu intaba talbiyada qaadaya talbiyada waxa weeye labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waanicmata laka waalmulk laa shariika laka taasuu ku celcelinayaa qofka xaj niyooday waajib waxaa ku ah inuu aada uga fogaado galmoosho xaaskiisa u galmoodo iyo hadduu addoommo leeyahayba iyo waxa soo jiidaya taataabashada iyo dhunkashada iyo wixii lamida sidoo kale wuxuu iska ilaalinayaa xaajiga saynu horeba u sheegnay la murmidda la socdayaalka la socda iyo dadka intiisii kalaba waxaan faa'iidiyadan ku jirin wuxuu iska ilaalinayaa inuu ama guursado ama wax u guuriyo wuxuu sidoo kale iska ilaalinayaa wax godan inuu qaato wuxuu qaadanayaa kabo anqawyada inta ka hooseeya ku eg ee aan anqawga soo gaaraynin oo cagta qarinaynin madaxa xaajiga saynu hore u sheegnay qarin maayo wax udgoonna taaban maayo tin goyn maayo cidina jari maayo ugaar u bambixi maayo geedaha xaramka ku yaaliya cawska u dhowaan maayo hadduu maka gala xaajigii waxaa loo jeclaystay inuu maka galo xagga korena uu ka galo isagoo ka soo mayrtay ceel diituwo la yihaa kuna yaalla xaafad maka ku taal magaceeda zaahir la yihaa hadday u sahlanta haddii kalena toos buu kacbada u aadayaa waa uu gelayaa kacbada albaabo badan bay leedahay wuxuu ka soo gelayaa albaabka baabusalaam la yihaa isagoo markuu soo gelaya allihiis xusaya rabbigiina baryaya ducooyin gaar ahaanaa jira kuna soo arooray gelitaanka uu xaramka gelayo ducooyinkiibuu akhrinayaa wuxuu ilaalinayaa usluubka gelidoo lugta midiguu hormarinayaa khushuuc iyo hogashuu ku soo gelayaa tawaaduc iyo isjilcin buu ku imaanayaa talbiyadana waa akhrinayaa indhihiisu markay kacbada ku dhacaan labada gacmood buu kor u qaadaa deeqda alleh tiro badan buu ka baryaa ducadii xilligaa soo aroortay yuu akhrinayaa hadduusan aqoonin wixii uu doon uu ku ducaysanayaa toos wuxuu u aadayaa xajarul aswadka wuu dhunkanayaa laakiin dhunkashadaasi inuu bishimaha saaro unbaa la doonayaa maahe inuu ka shanqariyo cod sameeyaa maaha hadduusan dhunkan karinna gacantuu ku taabanayaa hadduusan gacanta la gaarinna wuu tilmaamaya dabadeedna toos xajarul aswadka ayuu istaagayaa wuxuu markaana akhrinayaa ducadii xilligaa soo aroortay oo aada u tiro badan kadib buu dawaafkii bilaabaya waxaa la jeclaystay in marka uu dawaafka bilaabayo go-a garabka bidixana uu kor ka mariyo garabka midigana uu hoos ka mariyo oo markaa garabkiisa midige uu muuqanayo ficilo gabanuu samaynaya saddexda wareegee hore wuu soconayaa afarta wareegee dambe ilaa 7 wareeg baa laga rabaa waxaa la jeclaystay tiirka rugni yamaani loo yaqaan kaa inuu taabto xajarka inuu dhunkado hadduu ka gaaro wareeg la arkaba hadduusan ka gaarin wuu tilmaamaya goortuu ka farxasho dawaafkaas toos wuxuu aadayaa maqaamu ibraahim isagoo aayaddii alleh soo aroortay akrinaya waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla kolkaasuu wuxuu tukanayaa 2 ragcadood ee dawaafka kadib wuxuu imaanayaa zamzamka biyihiisu ka cabaya feeraha iyo calooshu ka buuxsanaya intaa kadib multasim buu tegayaa oo kacbada albaabkeeda geeskeeda bidixaa halkaasuu ku alla baryaya waxalla wuxuu doono khayr adduuniya mid aakhira buu allihii warsanayaa kadibna xajar aswadka ayuu taabanaya hadday u suura gasho waa dhunkanaya markaa baabka baabu safa la yihaa
ayuu ka baxayaa safuu aaday isagoo alla qowlkii akrinaya ina safaa walmarwata min shacaa'irillah kolkaa wuxuu fuulayaa safa kacbaduu wejiga aadinayaa wuxuu ku ducaysanayaa ducadii xilligaa soo aroortay waana uu ka degayaa kolkaana fayamshi waa soconayaa fi sacyi isagoo alla xusaya baryaaya wixii uu doonana ku baryaaya goortuu gaaray labada tiir eela riinjiga cagaarka ah inta u dhaxaysa kadla gabanuu samaynayaa ragga wey haweenku way iska soconayaan labada tiir hadduu masaafadoodii ka gudbaana si caadi ayuu u soconayaa ilaa marwo uu ka gaaro dabadeedna marwo buurteeda gabanku uu fuulayaa kacbaduuna wejiga aadinaya isagoo alla baryayo xusaya kaas shawd baa la yihaa kolka sidaas si lamida buu 7 jeer samaynaya sacyigaa waa waajib sida rajaxan qaarna rukniga ayay ku dareen oo qofkii ka taga ama kulligii ama qaarkiisa dhiig ayaa laga rabaa qolada ku dartay arkaantana xajku ansixi maayo inuu la yimaado maahe kolka hadduu yahay mutamatic cumro soo hormariyey tintuu xiiraya ama jaraya sidaasay cumradiisu ku dhammaatay waxaa u bannaan wixii ka reebanaa oo aanan haween ahayn hadduuse yahay qof xajkii iyo cumrada isku soo niyooday ama xaj keliya soo niyooday ixraamkiisii buu ku baaqi ahaanayaa maalintay bisha carafa 8 tahay ayuu markaa xarmanayaa gurigiisuu ka xarmanayaa mutamatic hadduu yahay wuu baxayaa isagiyo muslimiinta kale oo dhan ixraamkii iyagoo wata minay aadayaan habeenkaas 9aad minaa la baryayaa goortay qoraxda soo baxdo ayuu carafo aadayaa mina sunna ahaan waxaa lagu tukanayaa duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishihii salaadii subax dabadeedna wuxuu degayaa xaajiga markuu ban carafa kusii dhow yahay masjidu namira wuu qabaysanayaa duhur iyo casar kulansanna halkaasuu ku tukanayaa jamca taqdiim isugeyn horumarin buu samaynayaa imaamka muslimiinta meesha dadka ku tujinaya buu isna la tukanayaa casarkiiyo duhurka wuu gaabinayaayo midba 2 ragcad buu ka tukanayaa hadday u sahlanaatay inuu imaamka la tukado masaajidku boos ka helo degdego wey haddii kale meesha uu jooga teendhadiisa buu salaadii casar iyo duhur kulansan oo gaaban ku tukanaya hadba siduu awoodo wuquufka carafa lama bilaabo ilaa marka duhurkii casriga la tukada kadib maahe kolkaa wuxuu istaagayaa dhagaxyaha madmadow ee meesha ku yaal buu isagtaagaya ama u dhowaanaya hadduu yaqaan meeshii nabiga u istaagay cidima taqaan isku dhabarjabinteeda iyo dhagaxa carafa fuurideeda looma baahna kolkaa istaagidda carafa la istaagayna waa tiirtiirasha xaj kamida kolkaa ma wanaagsana inuu jabalu raxmo fuulo isku dhabarjabiyo qiblada ayuu wejiga soo aadinayaa kolkaa ducuu bilaabaya iyo alla xusid iyo hogasho ilaa habeenku ka galo habeenka markuu galo waa habeenkii 10aad ayuu musdelifo soo aadaya maqrib iyo cishihii oo 2 ragcadana jamcu taakhiir wuxuu ku tukanayaa musdelifa habeenka iyaduu baryayaa waagu markuu bariyo mashcarulxaraam oo salaada uu tukaduu tegaya in badan buu halka alla ku xusaya ilaa waagu ka cadaado kolkaasna wuu laabanayaa kolkaa wuxuu tegayaa isagoo dhagaxyo ka gurtay meesha ayuu mino ku noqonayaa kolkaa istaagaas mashcarulxaraam la istaagay waa waajib qofka ka taga dhiig baa laga doonayaa qoraxdu markay dhalatay kadibna jamrat alcaqaba buurta koobaad buu 7 dhagax ku tuurayaa hadduu hadiyo wada markaasuu gowracayaa hadduusan wadin tintuu xiirayaa ama waa gaabinayaa xalqiga ayaa marka wanaagsan wax walbaa marka u xalaal noqonayo oon haween ahayn kadib buu maka aadayaa hadday u sahlanaato tawaafkii rukniga ifaaduu samaynaya isna saynu hore u sheegnay waa rukni kolka sidii kii quduumku u sameeyey si lamida ayuu u samaynaya tawaafka 2 magac buu leeyahay tawaafu rukni waa la yihaa tawaafu ziyaarana waa la yihaa mutamatic hadduu ahaa bacda tawaaf ayuu soconayaa oo sacyigii samaynaya hadduu mufrid ahaa xaj kaliya ta xirtay ama qaarin labadaba isku daray quduumkii hore uu soo galay kadibna uu sacyi sameeyey waxba sacyi labaad soo celin maayo oo lagama doonayo tawaafkaa kadib ifaadaha markuu sameeyo ayaa wax kasta oo ka xaaraam aha bay u xalaal noqonayaan kolkaa kadib buu mino ku noqonaya minuu baryayaa 3 habeen 11 12 13 baryadaa maka la baryay saynu u tirinay mino la baryey saynu hore u sheegnay waajib wey haddii laga taga dhiig baa layska doonaya
maalinta 11 oo bisha Carafo saddexda meeloodba waa ganaya wuxuu ka bilaabayaa jamratul aqaba ta ku xigta jamaraadka xaggan ayuu ka bilaabayaa muna soo xigta kolka xagga aqaba u dambaysa ayuu tuurayaa saddexda jamra mid la arkaba 7 dhagax ayuu ku tuurayaa dhagaxa la tuurayo uusan ka weynaanin xabad galley ah oo kale mid walba markuu tuurayo bismillaahi allahu akbar ayuu ku tuurayaa labada hore markuu dhamaystiro tuurmadoodana wuu ducaysanayaa ka dambana maya kolka dhanka muna xigta laga bilaabayaa mid la arkaba goortuu tuur ilaah buu baryayaa kuwa hore marka caqabada u dambaysa jamratul aqaba maka u xigta ayuu ku gabagabaynayaa kolka mid la arkaaba waxa wanaagsan in duhurkii laga bilaabo ilaa intayan qoraxda dhicin baa la tuurayaa zaxmad iyo ciriiri hadduu waayena ilaa 6 saaxiibaynimuu gaarsiin karayaa maalinta labaad saasoo kale u yeelayaa maalinta saddexaad inuu sameeyo iyo inuu ka tago labaduba diinta waa u ogoshahay kolka dhagax tuurida iyadana wasaynu sheegnay waa waajib qofka ka tagana neef inuu ku gowraco oo kaba ayaa laga doonayaa marka markuu u noqonayaa markuu u noqdo intuu rabuu cibaadaysanaya goortuu ku talagalay inuu dalkiisii u noqdana tawaafkii weynaaye widaacuu samaynayaa tawaafkaa waajib weyn qofkii ka taga ama markuu u noqonaya oo tawaaful widaaci buu samaynayaa hadday noqoshada u suura gasho hadday u suurageli weydaana neef buu gowracayaa intaasoo dhan kolka aynu soo sheegnay waxaa laga qaadanayaa acmaasha xaajiga ama qofka cumrada samaynaya laga doonayo inay tahay xirashada 1 dawaafka 2 sacyiga 3 xalqiga 4 cumradii intaasaa ku filan xaajiga intaa wuxuu ku darayaa wuquufka carafo dhagaxyaalka muna tuurtuuridooda tawaaful ifaadaha baryida muna la baryayo gowraca qofkii xoolo wada tintoo la xiiro ama la jaro ayuu ku darayaa haddii lasoo koobo habka xajka loo guto waxa ay noqonaysaa sida aynu tilmaanay bay khulaasadii noqonaysaa marka waxaan alla ka baryayaa subxaanahu wa tacaala xajka dadka xajinaya inuu rabbi u sahlo kana aqbala ducada ay xajka ku ducaysanayaan waxaa laga maarmaana qofka xaajiga ah inuu maskaxdiiyo maanka ku hayo dadka walaalihiisa ee muslimiinta ee dhibkii uu qaba inuu meeshaa barakaysan uga soo alla baryo wixii dhibaatiya uu ku ogyahay dalkiisana uu uga alla baryo si gaara ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa ama ka codsanayaa hadday xajiyaan oo alla xajka makaniyo inay dadkooda iyo dalkooda nabad iyo deganaan iyo caafimaad iyo barwaaqiyo muwaafiqiyo midnimo ugu soo duceeyaan si gaara in qofkii kula dardaarmay ee xajka markaad aadaysay ku yidhi iiga soo ducee xajka kaasna inaad si gaara ugu soo ducaysid guud ahaanna aad dalkaaga u ducaysid si kasii balballaaranna aad dunida islaamka ama dadka muslimiinta meelay joogaanba aada khayr iyo muwaafaqa ugu ducaysid sidaa hadduu qofka xaajiga xajkiisa u guto waxaa la rajaynayaa xaggii alla qabuul inuu ka helo ilaahay addoommada waa la xisaabtamaa ma dulmo qofka xajkiisa la aqbalayna tilmaanooyin iyo calaamooyin lagu yaqaan ayuu leeyahay waxaa ka mid a calaamooyinkaas in qofkii isbedel khayr lagu arko oo intuusan xajinin siduu ahaa markuu xajiyo kadib uu cibaadadiisu badato khayrkiisu bato usluubka iyo anshaxa iyo edabta khushuuc iyo alla ka cabsiga khayr jacaylka inuu ka muuqdo waa calaamada qabuulka lagu garan karayo inuu xajkiisii maqbuul yahay waxaa kaloo lagama maarmaana maadaamaad xajisay ilaahna la rajaynayo dembigaagii hore inuu dhaafay warqadaada cad ee nadiifta inaad ilaashatid dembi labaadna aada iska ilaalisid haddii dembigii hore alla kuu dhaafay waxaan ilaah ka baryayaa in xajka uuna waafajiyo nagana aqbalo ilaa iyo ismaqal dambe intaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatnabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatnabadgelyo